qasriga looga arrimiyo boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maanta soo dhaweyn heerkeedu sareeyo lagu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Riyadh. boqorka dalkan Salmaan bin Cabdicasiis Al Sacuud ayaa qasriga ku soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa iyagoo salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka dalkaasi oo loo diyaariyay soo dhaweynta madaxweynaha qaranka. soo dhaweyn kadib ayaa boqorka Sacuudiga iyo madaxda golayaasha dawladda Sacuudigu waxa ay kulan laba geesooda la qaateen wafdiga dawladda Soomaaliya ka socday oo ay ka mid yihiin wasiirada maaliyadda, warfaafinta iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda qaranka. waxaana kulanka looga hadlay iskaashiga labada dawladood iyo arrimo kale. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulanka markuu soo idlaaday waxa uu warbaahinta qaranka faahfaahin ka siiyay waxyaabaha la isla afgartay. waxaan la kulanay boqorka iyo golihiisa wasiirada iyo qoyska caa'ilada boqortooyada ragga ugu waaweynaa. waxaan kala hadalnay boqorka horumarka iyo wanaagga Soomaaliya ka socda meesha ay marayso. waxaan uga mahad celinay sanadihii la soo dhaafay kaalmadii iyo gargaarkii Soomaaliya ay la garab taagneyd boqortooyada Sacuudiga. waxaan u bandhignay hadda mashaakilaadka Soomaaliya haysto sida ay Soomaaliya rabto inay uga baxdo iyo doorka Sacuudi Arabiya ay ka qaadan karto haddii ay tahay dib u dhiska Soomaaliya dhinac walba iyo haddii tahay Soomaaliya caalamka sidii maxaan ku raadayay meelaha iyo meelaha caalamiga ah ee suuq tagay Soomaaliya sidii ay mar walba u garab istaagi lahayd Sacuudi Arabiya jidda. Sacuudi Arabiya waxay ka mid tahay dalalka deymaha faraha badan ku leh Soomaaliya. saddexda dal ee deymaha ugu badan Soomaaliya ku leh ayay ka mid tahay Sacuudi Arabiya. ayadana waan kala hadalnay boqortooyada dhinaca horumarka oo arrimaheena wasaaraddeena maaliyadda iyo hay'adaheena maaliyadda ay sameeyeen ayaan la socodsiinay. cilaaqaadkeena aan la sameynay iyo wada shaqaynta nagala dhaxaysa bangiga adduunka iyo hay'adda caalamka lacagta IMF ayaan u sheegnay meesha marayso ayaguna ay aad u ogaayeen. intaa kadib boqorku wuxuu ballan qaaday Soomaaliya in dib u soo kabashadeeda iyo dib u soo dhisideeda iyo waxeeda in uu si dhab ah u garab istaagi doono dalka Soomaaliya. boqortooyaduna ay garab istaagi doonto. booqashadan wixii ka dambeeyana ay ku xigi doonaan booqashooyin kale oo kala duwan oo qaybaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya iyo dawladda Sacuudi Arabiya isu dhaafsan doonaan. وفود بدن الصومالية إن إيمان دون تضل كان سعود عربية وفود بدن السعوديين إن يتجي دون الصومالية. دولة بقرطوية السعودية العربية كلا شقين دولة الصومالية دي بسوق بشر الصومالية ديتها هيدينها دقالها أو مركة بالقشقة يا ديتها هيدينها أمنية يدجنانشيها ذلك أنت بمركة بوقشة أديات وين هي وزير هذا إلى الصعداء وحيل كل من وزير هذا دي جوده. dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona mas'uuliyiinta dalkan inta ay ku sugan yihiin oo ay booqasho rasmi ah ku joogaan. Bashiir Khaliif Gaani, SNTV, Riyadh, Saudi Arabia.